بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبع نهجه القويم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها المشاهدون لنا من كل مكان. دمان دتك الصوماليات محل كان إيجاد ونايت وحنكو سلام يا مركو رئيس سلامة إسلامك مرلبات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعن جعل يسدي إن لو داغو ولا لهيك الصوماليات شعبك الصوماليات ده iyo madaxda qarankaba fiidowgan aan hadda duubayo oo igu kaliftay waxyaabaha soo socda oo dhacay waxaan la kulmay saakay dhacdo aad la yaab leh waxaan ka baxay horta awala marka ugu horeysa anigu waxaan ahay Sheekh Abdulqaadir Sheekh Maxamed Sheekh Abuukar Sheekh Soomow afayinka golaha guud ee culimada Soomaaliyeed waxaan ka baxay saakay oo taariikhdu ay tahay 18 bisha October 2019 xafiiskayga waxaan ku yaal isla gurigayga waxaan u socday xaflad nikaaxa oo ka dhacaysay hotel Safari oo aan ku casuuna waxaan maray wadada waxaan ku tagay iskooyska Sanca halkaas waxaan kula kulmay sida caadada ay tahay booliska Soomaaliyeed ee halkaas jambotiga oo u yilay markaan tagay waan soo degday waxaan tusiyay idikaarkayga amba aqoonsigayga وانا اسو شاغي dadkii ma joogan waa soo wada istaageen way islaameen oo Sheekh Soomow way aal wada yiri sargaalkii wuxuu yiri maya ma ku sii deynaayo maxaa dhacay ee digaan wax ku deyma adna ku deyma cid kale wuxuu yiri yaan wax dhahay adaa taqaanidow hadda aqoonsi kuma dhino ee digaarkeen ku suusiye dadka inta joogo dhana ay wada yaqaan macalaskata qaar koor ay yaqaan u jeeda maxaa dhacay way iska laabay hor waa laabday waxaan maray wadada dhinaca kale haddana u laabday bal jirdiinkaan tagay markaan degaan degde sargaalkii afarta lagu fiiqaalay halkaas waa ka jooga meel gadaal aan ugu tagay sidii kii kale markaan u tagoon salaamay oo edikaarka u taagay wuxuu yiri edikaar ma shaqeynaa wadada lagu mari maayo saayela edikaarka ay dadka mas'uuliyadda ay shaqeyneen waa la qeysa hor liqow dhahay jidkana mari meys waxa la yaab leh marka anigoo hadda dadka askartu boqolkiiba 80 yaqaaneen bulshada ku nool magaalada Muqdisho ay aad ii wada garanayaan intoora badan haddii ay tan igu dhacday nikaaxi u socday ka soo laabtay waxaan tusiyay waxa ku dhici kara shacabka caadiga ah ee jidka maraya dhibaatada ku dhici karta sid xal arintaas loogu helo waxaan go'aansaday in aan la xiriiro taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed General Abdi Xasan waan wacay igama qaban fariin qoraal ayaan u sameeyay u diray oo anu qoray wixii dhacay aan u sheekaynayo ima soo jawaabin markaan ku celiyay waa iga qabtay markaan iga qabtay waa Sheekh Soomow fariin qoraalkayga ma waa heshay arintaas aan igu dhacday halkaas aan u socdaa wuxuu ugu dhahay waxa la yaab aan la yaabay oo fajiciisa igu naqday oo ay tahay inaan qof kasta inaan fiidowgan soo duubo igu kalifay ayuu dhahay wuxuu Sheekh Soomow ma waxaad ii soo wacaysaa anoo taliyaha aniga oo ah taliyaha ciidanka Soomaaliyeed jidka booliska iga xirtay telefoonkan waa igu damiyay waxaan is weydiiyay haddii booliski jidki inuu amnigiisa sugo dadkii la yaqiino oo aan shabaab ahayn oo aan burcad ahayn oo mas'uul ah jidka laga celinayo waxa ila socdo ogow hadday waxa aniga staafkayga darawalkayga kulli waa boolis waxa ila socdo ciidankii booliska waxa ilaha waa boolis waxa aan u dacwaa taliyay booliska waxa idhahay aniga jidlii soo sheegay waa Sheekh Soomow waa taliyay booliska shacabkina sidaas u leeyahay hadda intaas markaan arkay waxaan jeclaysay in aan fiidowgan balla wadaago bulshada Soomaaliyeed waxaan rabaa halka inaan baaq ugu diro madaxweynaha Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre gudoomiyaha baarlamaanka gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada mudane Umar Maxamuud Umar Firs waxaan idin leeyahay madaxay shacabku waa cadaaban yahay حاجة أمنينا دبعتو وجرا حاجة سجود أمنينا دبعتو وجرا روني كان شيء بين مو شيء حدي أروع أو أنت إتقان جيت كأن مريواي تدخل يوم مرة ما لقى جورا مجالدا ناس شيء حدي مجالدا لقى جورا حدي كلو حربا المحكمة لقى يطلعها عيدا كبوليس كلو يورو عدالة الهرجي فرنتي أنا قري نواهايا وحربا سراكيش ساسة بيسي إن عدالة الهرجي وحربا أو عسرايا إن أمنيك لصوم أو شعبك الدولة اسكت هالشدان شعبك أن أمنيك واحد لوح يلين
waxaan u baahannahay dowladnimo waxaanan deeqda dowladnimo waxaanan deeqda qarannimo nama deeqdo isbaaro cusub haddii ciidankii booliska ee aniga ila socday ee amnigayga sugaayay iyo kuwii aan u tago amnigayga inay sugaan ahayd wadadii aan u mari karin oo aan nikaax aan u socdo gabadh aan nikaaxi laha aanan nikaaxi karin xaggee aadagnaa shacabku xaggoo aadaya madaxweynaha waxaa ka rabaa arrintaas iyo ra-iisul wasaaruhuba inay si degdeg ah jawaab looga helo taliyaha ciidanka booliskana waxaan codsanayaa in cadaaladda sidaas inta uu sameeyo sharcigu wuxuu ka qaba in lagu qaado waa maasantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi taala wabarakaatu